وجهة كورمير كان قدوميها gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo maanta ku tagay deegaanka Ceelgaal oo qiyaasii 15 kiiloomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne ayaa ku saleysnaa indhayn xaddiga uu leeyahay burburka buundada Ceelgaal oo ah buunda halbowlo ah marinka gaadiidka isaga kala gudba gobolada waqooyiga iyo kuwa koonfurta Soomaaliya oo burbur xoogan oo ka soo gaaray daadkii ka soo rogmaday buraha ku teesan deegaanka Ceelgaal kadib roobab muddo saacadaha xiriir ka dhacay deegaanka iyo deegaano kale ka tirsan gobolka ka soo gaaray gudoomiyaha gobolka ayaa ballan qaaday in buundada Ceelgaal ee burburtay dib u dhis lagu sameyn doono waxaana gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar socdaalkiisa ku weelanayay xubno ka tirsan maamulka gobolka kan degmada Beledweyne iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida dadka deegaanka Ceelgaal iyo gaadiidleyda gobolka ayaa ka dalbaday maamulka gobolka Hiiraan inay dhisaan buundada Ceelgaal oo maalinkii afraad ay ku xaniban yihiin gaadiidada sida shacnada kala duwan kuwaas oo ka kala yimid gobolada koonfurta iyo waqooyiga dalka soona dhaweeyay dhismaha buundada Ceelgaal oo ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Yuusuf Axmed Hagar inuu dhisi doono maamulka heer abni iyo heer gobol waa soo dhaweynaynaa waxaan rabnaa inay kaalintooda ka geystaan in ay arkaan waxa meesha ka dhacay in ay gacmahooda iyo kaalintay ku lahaayeen ay ka geystaan wax waajibida ku ah inaad meeshaan u seexataan oo waliba aad wax ka qabataan waa idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada maamulka gobolka ay noo dhisaan buundada wixii kale oo kartida inoogu diri karaan noogu daraan dadkii deegaanka iyo maamulka gobolka iyo gaadiidleydii iyo waxgaradkii maadaama ay isugu yimideen in ay wax ka qabtaan wixii karaamkooda ah gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim Food Cade iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa dhankooda ka hadlay waxaana taliyaha guutada shanaad oo ballan qaaday in maamulka gobolka Hiiraan ay ka caawin doonaan sugidda amniga inta uu socdo dhismaha buundada Ceelgaal oo ah buunda halbowlo ah marinka gaadiidka buundada aad iyo aad bay u dhaawacantay dhul ilaa uu yaraan 200 iska dhig oo mataqaanaa oo mitir ayaa haaqmay oo mataqaanaa oo qardumay dhulkaas marka in laga shaqeeyo loo baahan yahay dhul yar ma aha marka waxaan maanta u joognaa halkaan inaan shaqadaas mataqaanaa aan bilowno oo gudoomiyaha gobolka hogaaminayay heer degmo iyo heer gobolba iyo ciidamada qalabka sido si uu soo gurmadeen iyo ganacsatada annaguna marka military ahaan waa ka qayb qaadanaynaa ama xag abni aan uga qayb qaadano ama hadee war 5 kiisho shumaytaan ninkii keenaba dan waay biro waaweyn ninkii meel ku oo keena dan waay meeshaas annaga loo baahan yahay in dhisano annagaydan noo tahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa kulan la qaatay gaadiidleyda gobolka iyo dadka deegaanka Ceelgaal waxa uu kala hadlay sida ugu wanaagsan ee ka maamul ahaan doorkooda ay uga qaadan karaan dhismaha lagu dayactirayo buundada Ceelgaal ee burburtay waxaana deegaanka uu gaarsiiyay agab loogu talagalay in lagu dhiso buundada Ceelgaal asigoona sheegay inuu ku sugnaan doono deegaanka inta ay socoto dhismaha buundada deegaanka Ceelgaal meesha tan dhaawac xoog la gaaray waxaan isku daynaa dhaawacaas inaan ka baanino haddii alla idmo dhaawacuna inta yaroo buundada maahane anuu ilaa ilka caddaan ku dhowaaday jidkoo dhan bay cara muslim geliyo wuxuu rabaa meeshii laga soo aasaasay in laga soo aasaaso wuxuu rabaa inta goday in lagu celsho haddaan lagu celin xaysaa ka dabageynaa xaysaa ka dabageynaa waxaan isku daynaa haddii alla idmo ilaahayna aan u tala saaranaynaa annagana mas-uuliyaddaayna aan isku xil saaraynaa meel kasta oo nabar habayn hore gaaray qaabkow raba ha u gaaray inaan annagoo dadkayna la kaashanayna oo dawladaha la kaashanayna oo yacnii ilaahay u tala saaranayna inaan sidii hore ku soo celinaan isku dayna reer Ceelgaal gaar ahaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan intay baahidaas ka bogsanayaan aan la joogno haddii alla idmo inaan baahida la qaybsanno inaan koontaroolno waxa laga shaqaynaa inaan amnigooda koontaroolno annaga shamiitadii iyo birihii iyo alwaaxyadii iyo musbaaradii iyo qabaaley wixii oo loo diray injineerku haddaan waa wadnaa maantay ay haddaana la dejina maanta shaqadooda la bilaaba wax kasta oo meeshaas loogu tala galay oo go'aana waa keenaynaa haddii alla
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa sheegay in aan la mari karin buundada ilaa inta laga dhisayo meeshaas laga bilaabo saacad iyo ayadoon ku foom laga bixin inay mari karo baabuur meeshaasaan waxaynu ku kala rogonaynaa baabuur inta ka yimaadaan intuu marima mid inta ka yimaadaan intuu marima waxaasna ka soo diyaar garowday waa mamnuuc amar cad aan hore uga bixin haddana ka bixinayna dadka gaadiidleyda madaxdooda waa joogtaa u sheegaynaa shacabka waa u sheegaynaa ciidamada qalabka sida waa u sheegaynaa waa mamnuuc wadadaas in intii loo yimaado inta loo maraa inta loo yimaado inta loo maraa ayadoo lagu soo celin sidii hore ahayd khaalid maxamed ismaaciil kacse telefishinka caalamiga Soomaali News beledweyne